هلا السلام عليكم خيري برواقة نرتيني أو كي عبسية كسر هذا برنامج كأني حامان كجو حياة ما أنت مان كجو حكجو حياة هنا إن بدن كفكري وأنا وير في صلية سيدا دكتين بإنتها وحن هذه مال قرح بدن جو قرح بدن نيتشر كيناش على هوا دكتين إنت أنا وحن كرهذه بل إن إيش يدو قبضته لو قفوا الصومالية ومريا meelahaas waxaan ka hadlayaa laba qof oo isjecel couple meelaha kaliya aan ku arko dadkeena inta badan waxa weeyaan meelaha ayaamaha ciida all you can eat ka ah ama makhaayad Soomaaliyeed marmaro chaotic situations caruurtii mar xagga u yaaciyaan mar xagga u cararayaan mar kala qabtaa hayay ice cream ka qubayay hayay raashinkii daadayay hayay biyaha bashle hayay waa special occasion so and aan ku farxaba marmarka xitaa hadan ku arko couple wada socdo maarashay caruurtoodii wata ma sha Allah waa si gaar ah u eegayo aad baan ugu farxaa inta laakiin maalinta laakiin sidee wax weeyaan waa maalin iska farxadna wada tab badan alxamdulillah qalalaasheedana leedahay marka meelaha caruurta geysid dadku saa isu jeedayaan cuntadii la kala wada cararayo caruurta Soomaaliyeed ice cream-ka bay iska dul taagan yihiin aad moodaa sidii hasha ay saa u lisaan marmarka qaarkood markaan ku beegmo meelahaas oo kale ice cream kan iska agstaaga make sure inaanay ice cream daadin oo bahalkii oo saa u furan oo saa u daaya ay iskaga dhaqaaqaan marmarka qaarkood marka labadii qofna mashquulkaas ay ku jiraan marka il gaar iyo kalgacal iyo maaragtay wax iyaga u gaar ah maaha waa labadii waxay mashquul ku yihiin siday caruurta wuxuu siin lahaayeen u fadhiisin lahaayeen u xasilin lahaayeen maaragtay waa maalin qoyste maalin family weeye laakiin labada qof laftooda u baahan ba iyagu inay waqti gaar ah yeeshaan ninkii gabayaaga ahaa poetka Jalaaluddin Rumi ayaa guurka wuxuu kaga hadlay wuxuu yiri may this marriage be full of laughter in our everyday paradise. I just love that. waxaan rajaynayaa in guurkani noqdo mid farxad badan iyo jannadeennii maalin walba waxaan rajaynayaa in guurkani noqdo farxad badan iyo janno joogta oo mar walba ama waxaan rajaynayaa in guurkani ahaado mid farxad badan wata iyo jannadeennii oo maalin walba joogta so beautiful a marriage guur waa inuu noqdaa meel lagu soo hirto kalgacal iyo jacayl maaha special occasions thing wax marmar la sameeyo maaha waa kalgacal iyo farxad joogta oo mar walba anigu runtii caruurtayda anaa iska kaxaysta maadaama aan hadda oday gacanta ku haynin laakiin uu istaagi maysi waliba dadkeennan maaragtay meelaha reer galbeedka jooga inagaad moodaa guurkeeni inuu aada u sii furfuray iyadoo aynu tegi karno dad boqolaal meelood oo qurux badan oo maaragtay kalgacal iyo jacayl lagu dhisi karaa ay hareeraheena ka buuxaan ayaynu haddana waqti isla isman karin ninkii fadhi ku dirir ku taagan yahay telefoon baa dhigta ugu jira iyadna la cararaysaa look at that gorgeous mudda qolofteenii alhamdulillah ma sha Allah this is where you say ma sha Allah ay jiraan God is the greatest maker waana dhibaatada ugu badan ee keenta in maaragtay dadku dhulka jooga xitaa ayadaan u deynin noloshooda inay hagaajistaan aynu isku dirno dad dibadaha la iskaga diraa dadka ordo nature ka faa'iideysta iska baxa caruurtiina intaad haysataan oo aad israacdaan oo aad cabins yaryar kiraysataan oo aad halkaa isbaacsataan subxaan al-eega lacag badan waxa weeyaan labadii bilood saddexdii bilood hadaa mar iska yara mountains the glacier oo aad maaragtay ilaahay iskaga wallaahi markaad tagto meelaha quruxda badan horena waa aniga idin sheegay ilaahay baad ku dhawaanaysaa oo maalin walba maxaadira dhegta inoogu jirta waan u fiirsaday Soomaalidu maxaadaradu ma aha inaad isku xusuuso kaliya ilaahay
ilaahay mar walbaad xusuusanaysaa markaad nature-ka ku dhowdahay ilaahay mar walbaad xusuusanaysaa marka aad wanaag ka shaqaynaysid ilaahay mar walba qalbigaaga kaba bixi maayaba you don't need qof kale hadalladiisu inay ku xusuusiyaanba waxa weeyaan waxaad dareemaysaaba inaad 24 hours-ka hortaagan tahayba si kasii badan xataa salaadii ayaad u dareemaysaa waayo wax walba ilaahay baad ka dhex arkaysaa marka wallaahi waxaan kula talin lahaa ka faa'iidaysta had nasto loodi hela oo isbarta family trips qaata road trips gala geeya carruurtiina meelaha quruxda badan nature-ka gacantooda ha ku arkeen indhahooda ha ku arkeen baalnayo gacantooda ha kula ciyaareen maaragtay quruxda dhulka goglan dhagxanta ha iska tuurtuurteen biyaha ha isla maaragtay ha isku splash gareeyeen xataa qalbiguu koriyaa nature-ku umaankuu koriyaa oo maaragtay adigoo dhan baa waxaad dareemaysaa raaxo iyo qurux iyo in ilaahay sidaa kuu hagaraynayo ayaad dareemaysaa ka walaalayaal wallaahi it's so important qof marka aad waqti isla isbeengaraysaan ee aad waqti isla qaadataan ee aad mar isla qososhaan ee maraad isla oydaan ee maraad showye isla daawataan iyo film muxaadare isla dhegaysataan wax isla akhrisataan qofkaasi adduunka qofka kugu dhow dee buu noqonayaa naturally wayba tahay inuu noqdo qofka dee adduunka kugu dhow ila waa xaaskaagii ama waa ninkaagii laakiin markaa waqti isla isbeengaraysaan saasana kala maarmi maysaan waxaad noqonaysaan laba aan kala maarmin xusuus ayaa dhisanaysaan waad buuxsanaysaan meel baad dhiganaysaan waxa weeyaan laba aan maaragtay idina u dhexayn laba maaragtay iskaga dhow iyo xataa haddaa kala maqan tihiin waxaad arkaysaa ama aad dareemaysaa adigoo ka fikiraya qofkii hadduu qofku maaragtay ilaahay dee aad waqtigiini midkood yimaadoo kala horeysaan xusuustaa meesha isla dhigateen ayaad ku noolaanaysaa in badan meelihii aad tagteen meelaha isla joogteen waxyaabaha wada samayn jirteen yaa haddii aad xataa maaragtay waqtigu idinsoo kala dhex galo aad islaysaan xusuustii aad meesha dhigateen yaa xusuustii aad meesha dhigateen ee sii dhitaysateen ayaad ku wada noolaanaysaan in badan markaasaad arkaysaan idinkoo maaragtay aan kala maqnaan karinba isku soo cararay markiiba ilaa wax qurux badan baa meel sii dhigateen oo sii dhitaysateen hooyooyinka keligoodoo kale ama aabbayaasha keligooda carruurtiina kaxaysta la dalxiisa meelo qurux badan la taga waqti isla isbangareeya hadhowto carruurtaada hadaad ka horreysid oo tii ilaahay kugu timaado xusuustaasay iyaga qudhooda haysanayaan waxa aad usii dhigtay usii dhitaysay ayaa u yaalla markay kaa fikiraanba qosol way qoslayaan way farxayaan yaa carruurtooda hadhow iyaguna sidaasay ula dhaqmayaan meelo qurux badan bay la doonanayaan wax qurux badan bay la raadinayaan yaa sida aad imika wax u bartay ayay iyaguna u barayaan responsibility baa ina saaran xil baa ina saaran ah inaynu wanaagga kubcino inaynu quruxda jeclaano inaynu maaragtay xusuus tabcano oo meel dhigano it's important adduunkani waa socdaal sii dhis xusuus qurux badan oo aad uga tagtid carruurtaada iyo xaaskaaga iyo ninkaaga khayr iyo barwaaqi iskugu